بسم الله الرحمن الرحيم وكما قفكي ugu horeeyay ee qalin wax ku qora inta aan su'aasha ka jawaabin waxaan isweydiinaynaa wixii ugu horeeyay ee Ilaahay abuuro muxuu ahaa wixii ugu horeeyay ee Ilaahay abuuro wuxuu ahaa qalinka waxaana u daliila xadiiskii rasuulka ee ahaa عن عبادة ابن الصامت قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب قال ربي وماذا أكتب قال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة يعني هي دنيا هي يقول ريي إلهي أبور وحوها قلمك إلهينا وحكوي لمركو أبورك بعدي قر قلمك وحي محان قرأ وحيد إلهي وحاد قرتا مقادير تأير دعدوينك شيء والبا إلا قيام ودعو شيء والبا خير كيسا إيه شر كيسا سيدا أوغاد هدين أوغانا وحي يقول ريي إلهي أبوري إنو قلنك يهي وحيس ويدين لقفكي يقول ريي قلن وحكو قرا يوها قفكي يقول ريي قلن وحكو قرا وحوها نبي الله إدريس عليه السلام وعلى نبينا وحوناها نبي الله إدريس قفكي يقول ريي درتوشا كشتان qoomkii loo soo diray nabiyullaahi idriis may aqoon sida dharka loo tolo isaga ayaa intuu dhar toshay gashtay sida awgeed waxa qofkii ugu horeeyay ee dhar tola hadana ku labista wuxuu qofkii ugu horeeyay ee cilmiga nujuumka ka hadla wuxuuna ahaa qofkii ugu horeeyay ee dejiya rusuumta iyo calaamadaha gobolada gobol walba calaamadihiisa wuxuuna sameeyay 188 magaalo oo uu dejiyay calaamadahooda wuxuuna ahaa nebigii saddexaad wuxuuna ku hadli jiray 72 luuqadood